taliya odagaa Yuusuf Raage ayaa ka digay qorshe mahada salaad uu ku dhawarjabinayo ciidanka beesha Abgaal ee ka dagaalamaya gobolka Shabeellada Dhexe. xaga la yaab leh ayuu banaanka keenay isagoo fariin qeerar la wadaagay General Xadoole oo ciidankan hogaaminaya ugana digay in mahada salaad ay isku aaminaan. sheegareeya Soomaaliya warkan weyn digniin ayuu soo saaray taliyihii ciidanku wada jeclaa ee odagaa Yuusuf Raage wuxuu arkaa khatar ku soo wajahan iyo dhabarjabin lagu sameynayo. waalidweynaha qurbaa ku nool waalid ka faa'iideyso fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada islaamka waana maxad ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada quraanka kariimka barashada akhriska higaada luqadda carabiga barashada afkeena Soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida kutubta fiqiga xadiiska iyo tafsiirka waxa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxayaa at-tahiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iideyso oo hadda isqora maxadka tartiilul qur'aan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka tartiil quraan online oo ku faafiya dunida guryadana gaarsiiya. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa soo saaray waran xadin leh isagoo uga digay taliska ciidanka beesha Abgaal ee ka dagaalamaya gobolka Shabeellada Dhexe qorshe khatar oo u maleegayo mahada Maxamed Salaad iyo inay digniin ka muujiyaan inuu mahad salaad gobolka Shabeellada Dhexe soo galo. warbixintan ayaynu kula wadaagi doonaa xogta muhiimka ah iyo digniinta uu soo saaray taliya odagaa Yuusuf Raage ee sheegareeya oo ku faafiya dunida meel ku tooro muuqaalkan. waa hagaaga aan ku bilaabo. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General odagaa Yuusuf Raage ayaa digniin u diray saraakiisha mas'uuliyiinta iyo xildhibaanada hogaaminaya dagaalka ay beesha Abgaal ka wada gobolka Shabeellada Dhexe ee lagula dagaalamayo ururka argagixisada Al-Shabaab. taliya odagaa Yuusuf Raage ayaa fariintan uu soo diray wuxuu uga digay saraakiisha in mahada Maxamed Salaad uu khatar weyn ku yahay ciidanka isla markaana oo wada qorshe lagu dhabarjabinayo isagoo sheegay in hay'adda nabad sugidda ciidamo dharkeeda loo geliyo Al-Shabaab ka tirsan oo mahad Salaad hogaamiye ka yahay oo hadda raba in aaga Balcad ilaa iyo aaga deegaanka Xawaadley oo dagaalka ka bilaabo isagoo ururka Al-Shabaab gacan ku siinaya sidii ciidanka dhabarjabin loogu sameyn lahaa. wuxuu sheegay in ururka Al-Shabaab ay hadda ku dhuumaalaysanayaan deegaanka Masagawaay ayna qarka u saaran yihiin inay kala cararaan oo farxadkoodu hadda ma dhowa. laakiin waxaan idinkaga digayaa inaad aamintaan mahad salaad qorshe uu ku dagaalamayana aad ka digtoonaataan yuusan wax idiin meerinin ee ka gala baska ayuu yidhi taliya odagaa Yuusuf Raage oo uga digayay saraakiisha ciidanka dowladda inay markaasi ururka Al-Shabaab dagaalka lagula jiro mahad salaad ku aaminaan. qorshayaasha kala duwan ee naga soo gaaraya howlgallada ciidamada dowladda Soomaaliya ay wadaan ayuu sidoo kale taliya odagaa Yuusuf Raage ku sheegay inay tahay mid u baahan in ciidamadu ay feejignaan dheeraada ka qaataan maadaama khataraha ugu waaweyn ee ciidanku ay leeyihiin uu ka mid yahay mahada Maxamed Salaad oo kaliya rabo inuu dhabarjabiyo ciidanka laakiin aan dan kale iyo xaajo kale ka lahayn sidii ciidanka Soomaaliyeed ay uga guuleysan lahaayeen ururka Al-Shabaab. ciidanka hay'adda nabad sugidda iyo suldaanka qaranka ay isku aaminina marnaba kana digtoonaana tallaabooyinkaas ayuu mahad Salaad la damacsan yahay oo yiri. ururka Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda ayaa dagaalka ugu cuslaa waxa uu ku dhex maray deegaanka lagu magacaabo Masaajid Cali Gaduud iyadoo halkaas ciidamada dowladdu ay ururka Al-Shabaab si xun ugu bahdileen iyadoo warar kala duwan helinana ay sheegayaan in si toos ah looga saaray ururka Al-Shabaab deegaanka masaajidka. ciidamada dowladda ayaa la wareegay deegaanka Masaajid Cali Gaduud oo ku yaala Shabeellada Dhexe. ciidamada ayaa si nabadgelyo ula wareegay mana jirin dagaal ay kala kulmeen xilligii hore balse sidaan ku helnay xogo kala duwan oo naga soo gaaray deegaanka ururka Al-Shabaab ayaa dagaal rogaal celis ku sameeyay ciidanka iyada oo dagaal jilbaha la isu aastay
oo halkaasi ka dhacay ayna saacado dagaalamayeen labada dhinac. Sheegray xogahan qaybta falaan uga wadaag aragtidiina tan ay kulansan doonaan nabadgelyo. waalidweynaha qurbaa ku nool waalid ka faa'iideyso fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada islaamka waana maxad ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada quraanka kariimka barashada akhriska higaada luqadda carabiga barashada afkeena Soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida kutubta fiqiga xadiiska iyo tafsiirka waxa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya at-tahiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iideyso oo hadda isqora maxadka tartiilul qur'aan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka tartiil qur'aan online